السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله إلهي دتي سجعلنا هيو عمرينا عافماتكينا يا أولادنا الله بركة ملك استوجوكتنا الله ينكو حفظيو وأنكم هالسنتين سايدنا ديرجل لسان. والله هي ما أنت حالك هو وكدوية هي وحنا وضعنا إسكوب أتبس أو تغانين أما حاقين. طبعا ما أنت سؤال بنجع ليسني إن أنا ويدينا رجع. su-aashaasoo ragow maxaad ku jeclaateen markaad dumarka la haasaaweysaan ama aada shukaansanaysaan inaad been u sheegtaan oo been aad kusoo xerogelisaan. dabcan uma qalmaan laakiin way dhacdaa. su-aal kale ayakana haddaan weydiiyo dumarka, su-aashaasoo dumarow maxaad ku jeceshihiin raggu inay maqaam sare iyo shaqo sare wada qabtaan, mase wada aadi karaan nin kasta inuu shaqo sare ama xafiis ka wada shaqeeyo ma suuragal baa? dabcan su-aashaas baan ka wada sugayaa marka hore. intaa kadib walaalayaal, sidaan wada ognahay raggu markay haasaawayaan oo guri gelayaan ama ay shukaansi ku jiraan waxay sameeyaan been badan. sida dhaqanka Soomaaliga uu yahayna waxay yiraahdaan dhalinyarada Soomaaliyeed ama dadka ragga Soomaaliyeed guud ahaanba dumar been baa lagu soo xerogelishaa, runna waa lagu dhaqaa. taa waa been, laakiin waxa u dambaysa in reerkaas uu burburo, sida qisada hadda ay sheegi doono aad ka dheehan doontaanba. wiilba qisadan waxay ka dhacday Nairobi Embakasi. qisadaas waa qiso cajiib oo ina saameyn doonta ama yani bulshada Soomaaliyeedna aad ugu badan, dhaqankaas aad buu ugu badan yahay. marka wiilba gabar shukaansanayay ama la haasaawayay wuxuu uga sheekeeyay gabdhaha sidoodana asal marka hore markay haasaawayaan waxay ragga weydiiyaan shaqada nuucu hayo, maqaamku shaqada ka joogo ama shaqada inuu asagu leeyahay ama inuu yani shaqaale ka yahay, yani maqaamkiisa ay ka wareystaan. ninkan markuu gabadha la haasaawayay wuxuu ku yiri waxaan ka shaqeeyaa Jomo Kenyatta Airport, ayaan waxaan ka ahay yani maqaam sare ayaan ka leeyahay oo aan maqaam sare ayaan ku joogaa. marka gabadhii arrinkii way rumaysatay, guri baa la wada tagay, 10 sano ayaa ilmo la wada dhalayay. 10 sano ayay wada joogeen, ilmo wada dhalayeen. 10kaas sano ka bacdi waxaa dhacday qaybta dambe ayaan ku faalay doonaa saameynta dariska xun uu leeyahay. waxaa dhacday qaybtaas waxaa ka dhacday dariskii la deganaa gabadha ayaa xogaa oo dumar ahaa ayaa dagaal dhex maray. markay isdagaaleen, dumar waa taqaanaan oo afkay ayaa xogaa wax ka dhaadhacaan oo yani ereyo badan baa la isdhaafsaday oo caaya. waxaa ka mid ahay dumarkii kale waxay dhahayeen gabadha oo ninka qabo waxay ku yiraaheen naahada ninka wadada ka shaqeeya oo wadooyinka xaaqaso adigu kuma qabo, maana kana la xisaabtami kartaa adoo ninkaas uu qabo, suuragal ma haynahay naga leexo na dhaaf. gabadhii waxay tiri maay ninkeyga maaha waxa sheegaysa ninkaasna ima qabo, waad erab darantiin wasaqdiina iyo af xumadiina igala hortaga ayay ku tiri. arrinkiisaas oo ay ku dhamaan dagaalkiina dab waa la xaliyay. dabcan ninkeedu markuu guriga ka baxayo wuxuu xirtaa zuud qurux badan iyo dhar qurux badan ayuu xirtaa, jacket zuud qurux badan ayuu xirtaa, shaas ayuu shaqada ku aadaa. markuu soo noqonayna asoo qurux badan oo soo naashnaashay oo wanaagsan ayuu guriga ku soo noqdaa. gabadhii waxay markii galabtii la gaaray oo arrinkii la xaliyay ayay gabadhii waxay ku tiri ninkii walaalow maanta dacwad baan ku qabaa. dacwadu maxay tahay ayuu ku yiri. dacwadii waxay ku tiri shaqada ka shaqaysid waa isirtay, shaqada ka shaqaysid ii sheeg. ninkii wuu meermeeray wuu sheegi waayay. at least markii ugu dambeysay runtii ayay arrintu istaagtay oo ninkii wuxuu ku yiri intaa waxaan kaaga qarinay inaad gurigayga uga burburo ayaan kaaga qarinayay, waxaana kugu sheegay inaan adiga ku kasbado jaceelkan kugu qaba daraadeed ayaana rabay inuusan naga burburin. inaad iga tagtana waan diidanaa oo markii haasaweynay kuma aana sheegin, waayo haddaan kuu sheegi lahaa waad iga tagi lahayd, aad baana kuu jeclahay ayuu ku yiri. gabadhii xamaamaheedii iyo hilfaheedii bay hore u qaadatay, guriga way ka tagtay. walaalow nabadgelyo tiri, ani nin wadooyinkaas ka shaqeeya wadooyinka xaaqa ninkeyga ma noqon karo. halkii ayay gabadhii ninkii uga tagtay. saameyn badan bay bulshada arrinkii ku yeelatay oo social media Nairobi Kenya iyo guud ahaan haysatay qaybta Kiswahiliga, qaybta Ingiriiska ayaa aantan aad loo wadooday isbuuci la soo dhaafay, aad loo hadal hayay. marka laba arrin baa in la islu istaaga ay u baahan yihiin. qaybta ugu horeysa waa qaybta su'aasha aynu weydiinayay ahayd raggu haddaysan been dumarka u sheegin
oo sida xaqa ah oo saxiixa ah oo runta ah ay dumarka u sheegaan markay la hasaawayaan, beentaas qaybta dambe ma imaato inta badan, waayo runtii ayaa shaqaynaysa. laakiin haddaa been ku sheegtay sidaan oo kale ayaa dhacda, wayna dhacday. waxaa laga yahay qisooyin badan oo la maqlin aan la ogeyn inay saas oo kale u dhacday. qaybta labaadna waxaa saameynta qoyskaas burburintiisa iska lahaa dariska xun ee degan agtiisa, ama sida kale u dhigay dumarka afka ayay inta badan ka falan yihiin, ama dumarka xumaanta wada ee qoyska kala geeya. horaana waa uga soo hadalnay, qoyska kala geeya aada bay u badan yihiin. laga yaaba inay gabadhii ku aflagaadeeyaan jismigeeda iyo qaabkeeda iyo shaqada ninka uu hayo inay ku aflagaadeeyaan. laga yaabay in gabadha lagu xadgudbo oo la yidhaaho walaalay ninkaasa ku qaba, suuragal maahan inaad adanka nala tirsatid ama aanan raacdid. ama soomaali ahaan in la yidhaahdo ninkaas shaqada ka shaqeeya lagu yeeso, ama shaqada nuucu ka shaqeeya la yidhahdo walaalow shaqadaas ka shaqeysaa nadaaf oo hanala soo fariisan naga tag la yidhaahdo. aada bay u dhacdaa, in badanna soomaali way ka dhex dhacdaa. marka walaalahay kilibkan ama qeybtan waxaan ugu talagalnay waxay tahay, waa baraarujin aan dumarka baraarujinayno, waa baraarujin aan ragga baraarujinayno. taa oo ah qof uurka hooyadii kaga soo baxday shaqadaas qabso ma jirto, ama asoo shaqo haya qof uurka hooyadii kala soo dhex baxday ma jirto. inaad maqaam sare shaqo ka qabatidna ma ahan macnaha guurka loogu talagalay. laakiin guurka macnaha loogu talagalay waxay tahay in labada qofood wada noolaan karaan, wada xiriiri karaan, wada dhaqmi karaan, wada heshii karaan, ayaa guurka macnihiisu yahay. laakiin shaqadaas ayaad ka shaqaysaa ima guursan kartid macnaheedu ma aha. dumarkana inta badan su-aasha waxaan jeclaan lahay inay aada isaga dhaafaan. waa su-aasha ugu horeysa markii la hasaawayo oo la isbarto kabacdi, walaalow shaqada ka shaqaysa bar, ama shaqada ka shaqaysa ii sheeg. waa su-aasha ugu badan ee dumarka ay sameeyaan. marka waan filayaa qisadana inaad aada uga bogateen, ay xaqinku inuusan ahayn ceeb, in la shaqaystana inaysan ahayn ceeb, laakiin shaqadu ay tahay sharaf iyo haybad iyo yacni wax aada u fiican oo bulshadu aada u ammaanto. marka intaa ayaan jeclaanay inaan kusoo koobno barnaamijkeeni aan ugu talagalnay iskoobaha, ama in wax la xaaqo, ama in la shaqaysta mashceeba. intaan dib dambe isugu soo noqon doono, faafi oo la wadaag walaalkaaga kala khayrka, oo ka qayb qaado sidii loo faafin lahaa wanaagga, laagsa si bulshada badan u arkaan. waad mahadsantihiin. salaamu calaykum waraxmat